Masar waa wadan weyn waxa uu leeyahay dhul baaxad ahaan dhaafaya malaayiin kiiloomitir isku wareeg ah, balse marmarka qaarkood nambaradu waa iska nambaro uun. Waxay Masar ku nooshahay oo kaliya waa 3%kiiba dhulkeeda oo la beerto. Waa dhulka ku hareeraysan webiga Niil, halka dhulka intiisa kale ay tahay saxare aan dhammaad lahayn oo lama degaan ah. Marka aad u fiirsato sawirada satellite-ka xagga sare, waxaad arkaysaa in cagaarka wadankuba ku dhantahay oo kaliya inta ku hareeraysan webiga Niil. Meesha kaliya ay Masar biyaha ka heshana waa webiga Niil. Webiga jambigiisu waa hoyga nolosha wadanka. Waxaa ku nool beeralayda wadanka oo idil. Webiguna muddo qarniyo ah waxa uu ahaa isha kaliya ay Masar leedahay, halka kaliya ay beeruhu ka baxaan. Geerida Niil iyo macluusha Masar. magaalada Qaahira oo ah caasimadda Masar waxay dadku dhahaan caasimadda Carabta. Waxaa ku nool dad kor u dhaafaya ilaa 20 milyan oo qof. Meesha kaliya oo ay biyaha ka helaanna waa webiga Niil. Balse biyaha Niil waxay leeyihiin asalkooda gaarka ah. Waxay ka soo bilowdaan harada Victoria. Waxaa sidoo kale noqodiya webiga Niil buuraleyda Itoobiya. Waa qaybta la dhaho Niilka buluuga ah. Ku dhawaad 60%kiiba biyaha Niil waxay ka soo bilowdaan buuraleyda Simiyan ee Itoobiya. balse nolosha Masaaridu khatar weyn ayay ku jirtaa. Beeralaydu waxa ay la ildaran yihiin biyo yari, halkii kanaalada biyuhu buuxsami jireenna waxay marayaan heer ay biyuhu qulquli waayaan. xilliga dayrta ah biyuhu waa caadi, balse xilliga xagaaga biyuhu aad ayay u yaraadaan oo wax biyo ah ma helno. Sidaas darteedna waxay dowladda Masar ku taxallujisay beeralayda inay beertaan dhir aan biyo badan u baahnayn. Webiga Niil oo sidaas u qalala maahan wax cusub. Aan dib idin celiyo 10,000 sano ka hor, muuqaalka guud ee dhulkan waxa uu eegaa sida tan: dhul cagaaran oo kaymuhu biyo jiifaan, webiyaduna buuxaan, xayawaanaduna webiga xaaxigiisa ku nasanayaan kuna mushaaxayaan. noloshu waxay ahayd mid aad u qurxoon. balse waqti kadib xaaladuhu waa isbedeleen, noloshiina waa ay isbedeshay. waxaana caddayn kuugu filan sawiradan derbiyada ku qoran ee qarniyadii hore la sawiray in meeshatan maanta saxaraha ay ku noolaan jireen xayawaanadan sida geriga iyo duurjoogta kale fara badan. Maroowe waxay ahayd caasimadii Kuush. ahraamtaasuna waxay ahayd calaamadeedii. waxay soo martay xilli ay ahayd goob lagu kala bedesho dahabka adduunka, gaar ahaan dahabka Afrika. balse waxaa qariyay ciidii saxaraha qarniyo kadib. dhanka kale 1500 kiiloomitir dhanka galbeedka waqooyi bari wadankaasi Jaad waxaa ku yaala Andibalato. 10,000 oo sano dhulkan waxa uu ahaa dhul barwaaqo ah, heer ay harooyinku il muhiim ah u ahaayeen webiga Niil, sida webiga Niil qaybtiisa Blue iyo White Niilka loo yaqaano ay biyaha ugu shubi jireen. waxaa loo aqoon jiray ishatan Yellow Niil ama Niilkii jaalaha ahaa. waxaana maanta ka haray goobta caanka ah ee loo yaqaano Alqualta ee kumanaanka geela ay u soo doontaan biyo maalin kasta. astaamaha raadadka hore qalaylka Niilka jaalaha ahaa waxa ay digniin u tahay Masaarida haatan, iyadoo ay biyo la'aantu jirto. waxa kale oo meesha ku jirta geopolitics-ka kale soo food saaraya. 2011 waxay Itoobiya bilowday barnaamijkeedii biyo xireenka oo ku kacaya ku dhawaad $5 bilyan oo dollarka Mareykanka, lana dhaho Grand Ethiopian Renaissance Dam, loona soo gaabiyey GERD. GERD waxaa la damacsan yahay in Itoobiya ka haqabtirto biyo la'aanta, faqriga iyo baahida korontada loo qabo. sidoo kale korontada oo wadamada deriska ah laga gadanayo waxay keenaysaa ilaa $1 bilyan oo faa'iido sanadle ah oo aad loogu baahan yahay. wadamada deriska ahna waa soo dhaweeyeen. haradu waxaa kale oo u sahlaysaa Itoobiya inay biyaha kaydsato, sidoo kalena kobciso dalagyada beeraha.
si ay wax uga beertaan. Dhanka kale masaarida baqdin weyn ayaa laga qabaa in beeruhu si aangagaan biyo yari awgeed macluulna sababto. Waxay keentay hanjabaadyo heer warbaahinta caalamku ay dabacdo inay sababi karto dagaal labada wadan ee ka dhaxeeya. inkastoo ay jireen wada hadallo iyo is-afgarado fara badan, balse waxaa la isku afgaran waayay muddada ay Itoobiya rabto inay ku buuxiso harada. Itoobiyana waxay rabtaa inay si dhaqso leh ku buuxiso biyo xireenka. dhanka kale masaaridu waxay dadaal ugu jiraan sidii ay u horumarin lahaayeen qaab beerashada beeraleydoodu. waxaana muhiim ah in webiga la wada dhowro maadaama uu yahay webi muhiim ah, bi'adana muhiim u ah aan ku noolnahay ee Afrika. mahadsanidin, fadlan ha hilmaamin inaad subscribe tiraahdo. aad ayaad u mahadsan tahay.